bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan halkani waa bartaan ku leenahay youtube-ka janalka xulka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida kaga hayno qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah 5 kursi oo kamid ah golaha shacabka oo maanta lagu dooranayo magaalada Baydhabo iyo kuraastaas oo qarkood soo baxay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo safarkiisii ugu horeeyay uga ambabaxay magaalada Kismaayo si halkaasi oo goobjoog kaga noqdo qaar ka tirsan kuraasta golaha shacabka oo halkaasi dhawaan ka dhacaya wasiir ka tirsan xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya waxa cabasho ka yahay kursiga tiriskiisu yahay 166 kaasi oo sheegay in aan loo marin qaab sharci ah qodobadaasi wixii ugu soo kordho yaan ku faaqiidi doonaa saaxiibayaal muuqaalkayga intii uu socdo haddii ay tahay daawada markaadii ugu horeyso aad soo booqatay fadlan muuqaalkan la gare oo saaxiibada share u dhee muuqaalkan sidoo kale subscribe saare si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkan aan soo galino mar walba mahadsanid aan ku xasuusiyo waqtigii salaada haddii ay tahay fadlan soo duka salaada oo dib ugu soo laabo daawashada muuqaalkan mahadsanid aynu ku bilaawno 5 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta waxaa lagu dooranayaa magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulkaasi Koonfur Galbeed kuraasta maanta la dooranayo kuwa kamid ah ayaa soo baxay waa kursiga tiriskiisu yahay 46 oo ay hore ugu fadhiday Raabaco Sheekh Nuur ayaa waxaa maanta ku tartamay Maxamed Wardheere Cabdi iyo Cabdilaahi Samuw Cusmaan balse waxaa ku guuleystay Maxamed Wardheere Cabdi ilaa iyo 95 ergo ayaa codeysay sida ay u kala heleen musharaxiinta tartamaya codadkana waxa ay kala tahay sidaan Maxamed Wardheere Cabdi oo kursigan ku guuleystay ayaa waxa uu codad gaaraya uu helay 83 cod halka musharaxii la tartamayay ee Cabdilaahi Samuw Cusmaan uu helay 11 cod halka cod kale uu ka halaabay kursiga shanaad ee deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa waxaa la filayaa in dhawaan asagana la doorto kaasi oo tiriskiisu yahay 156 wixii ka soo baxo doorashadaana waxaan sidoo kale nagu la wadaagi doonaa muuqaaladeena xiga dhanka kalena haddii aynu eegno magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulkaasi Jubbaland ayaa maanta waxaa gaari wafdi u hogaaminaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay xubnaha guddiga heer dowlad goboleed ee Jubbaland oo horkacayo gudoomiyaha guddiga Sayid Axmed Mursal iyo xubno kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubnaha kale ee la socdo ee gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubnaha kale ee la socday ayaa waxa ay Kismaayo u tagaan sidii xogaal uga noqon lahaayeen doorashada dhawaan golaha shacabka ay halkaasi ka dhici doonto kuwaas ugu soo horeeyaan 6 kursi ee jadwalkeeda dhawaan ay shaaciyeen kuwaas ugu soo horeeyaan 6 kursi ay dhawaan kala xubnaha guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa waxa uu gudoomiyaha kala tashan doonaa sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka golaha shacabka ee halkaasi dhawaan lagu qabanayo iyo sidoo kale kuraasta u dhamaan maalinta axadda ah ee toddobaadka soo socda ayaa waxaa la filayaa magaalada Kismaayo in ay ka dhacdo doorashada 6 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland dhinaca kalena haddii aynu eegno wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku sheegay in uu cadeynayo bulshada Soomaaliyeed in si baalmarsan habraaca doorashooyinka loo maray kursiga sumadiisu ay tahay 166 wasiirka ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in xubnaha xulayay ergada iyo kuwa ergada soo xulay ay ahayn kuwa matalaad dhaba ku leh bulshada sidaas darteed nabadoonada beesha kursiga ka dhaxeeyo aan wax door la siin kursigan oo sida doorashadiisa loo maamulay oo haatan cabasho ka keenay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa waxa ku fadhiyay wasiirkii hore ee shaqada iyo shaqaalaha Sadiiq Xirsi Warfaa waxaana deegaan ahaan uu ka soo jeedaa Sadiiq deegaanada maamulka Puntland doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ee hore doorashadooda uga dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira cabasho taas oo keentay in golaha wadatashiga ee shir qaran ka yeeshaan taasi oo weli sida muuqata doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka oo doorashadooda hore uga qabsoontay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira cabasho xoogan taas oo keentay in ay shir ka yeeshaan golaha wadatashiga balse weli waxaa muuqdo cabashada ay ka keenayaan mas'uuliyiinta dowladda qaar ka tirsan kuraasta markaasi hore loo doortay kuwa imika dhiman markana Abuukar Xaaji Warsame Xuud generaalkan ayaa waxa uu maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Generaal Abuukar Xuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Hirshabelle ayaa maanta waxaa la keenay magaalada
caasimada ah ee Muqdisho isaga oo ogolaaday inuu wada hadal toos ah la galo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xuud oo diyaarad gaar ah ay ka soo qaaday Beledweyne ayaa waxaa la socday taliyaha ciidamada lugta Generaal Biixi oo hormuud ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisada ka aloolsan magaaladaasi si loogu qabto doorasho golaha shacabka ee Soomaaliya. Generaalka oo muddo ku sugnaa duleedka magaalada Beledweyne ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay caasimada, waxaana garoonka uga hortagay ciidamo iyo saraakiil loo diyaariyay inay ka qayb noqdaan soo dhaweyntiisa, taasi oo dhalisay hadal hayn xoogan. Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo horey uga hadlay safarkiisa Muqdisho ayaa xusay inuu kulan gaar ah la qaadan doono Farmaajo, maadaama filla Soomaaliya ay haatan dadaal xoog leh ay gelinayso xiisada Beledweyne. Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in ay guuleysan doonaan wada hadallada socda ee xalka loogu raadinayo tabashada reer Hiiraan. Xalka Hiiraan haddaan madaxweynaha isku tagno waxaana qiyaasayaa 70% inay xalsami doonto, ayuu yiri Generaal Xuud. dhinaca kale waxa uu beeniyay in ilaa iyo hadda uu kulan la yeeshay madaxda Hirshabelle ee ku sugan Beledweyne sida madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Xuud ayaa sheegay inuu haatan wada hadalku kula jiro dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kacdoonka ayaa la yiraahdaa Hirshabelle wax la yiraahdo shir lama yeelanin annaga, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Abuukar Xuud. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalin ka hor taliyaha ciidamada lugta oo ay aad iskugu dhow yihiin Farmaajo uu gaaray magaalada Beledweyne isagoo halkaasi ka bilaabay kulamo xal raadin ah ee si magaaladaasi looga qabto doorasho golaha shacabka ee Soomaaliya. Tan ayaa waxa sidoo kale dadka arrimaha siyaasadda oo doorasho ay ku macneeyeen in Abuukar Xuud uu ka soo jeesan doono garabka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama dadaal dheer uu madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu geliyay Abuukar Xuud sidii uu soo xaragelin lahaa, isla markaana khilaafka kala dhaxeeya maamulka Hirshabelle uu u dhammayn lahaa iyo madmadowga ka taagan si Fahad Yaasiin oo ah agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan una halkaasi uu kula tartamo musharax kale oo markaa doonaya xilka xildhibaannimo ee beeshiisa una ugu soo baxo Fahad Yaasiin oo waqtigan doonaya inuu u xuubsiibto nin xasaanad leh si aysan dambiyo ugu soo oogin dadkii eedeymaha badan u haystay. gudaana saaxiibayaal barnaamijyadeena waa inaga intaa. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqatay daawade, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarato channelkeena, aad like garayso, siina share garayso si muuqaalada halkan aynu soo gulno idiin soo gaaraan. waad ku maasantihiin daawashada muuqaalkeena. mar walba ku xiraada wararka TV si aad u heshaan macluumaad dheeri ah ku saabsan xiisada